xildhibaan ama wasiir inta qaado koox qabiilkiisa madaxweynaha inta u geeyo yiraahdo halkan jenaraal iga dhig ninka ama taliye iga dhig taas waan sixi doonaa xataa darajooyin qaldan haddii la baxshay madaxweynaha aan xiranayn qolka hoos ka soo xiranayn oo furmaha hore ciidanka la jooga khatarta ciidan ku jiraan oo kulana gelaya tuutaha u labistay khataraha aad aragteen oo 6 jeer ama 8 jeer isku daydil uga badbaaday Soomaaliyeed raalli ka tahay oo tabarteena ah inaan u qabanno haddii la yiraahdo annagoo iskaashanayna arrinta amnigu waad aragteen wiil macawisley ah ayaa looga maarmi waayay dad baa looga maarmi waayay bulshada iska badaa wasaarad gaar ah ama talis gaari shaqo kaligiis uu qaban kara maaha ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa uga baahanahay inay garab qabtaan maanta marka oo aan si rasmi ah ula wareegayo hoggaanka wasaaradda gaashaandhigga waxaan xusuusinaynaa in difaacu yahay halbowlaha jiritaanka qarannimadeena waa waajib qaran oo na faraya inaan u midayno awoodeenna hantideenna nafteenna iyo caqligeenna si aan u xaqiijinno nabadgelyo buuxda in Soomaaliya ay hesho difaac ay hesho iyo jiilasha soo socdana mustaqbal ay ku noolaadaan oo ay nabad ku noolaadaan inay helaan wasaaradda gaashaandhiggu waa hay'adda mas'uulka ka ah difaaca madax bannaanida dalka ayadoo adeegsanaysa dabcan ciidankeeda ilaalinta sharafta shacabka iyo suurtagalnimada danaha qaranka gudaha iyo dibadda waa gaashaanka difaacaya jiritaankeenna midnimadeenna iyo hannaankeenna dowladnimo ee Soomaaliyeed qaran walbana waxaa lagu qiimeeyaa dunida hadda joogta awoodda ciidankiisa tayada hoggaankiisa agabka uu haysto iyo shacabka heeganka u ah shacabka deegaankaas ama dalkaas ee heeganka u ah inay garab istaagaan muddada aan joogno insha allahu tacaala waxaan xoogga saari doonaa in la dhammaystiro oo aan garab u noqonno ciidankeenna sidii loo dhammaystiri lahaa khawaarijta isku soo bahaysatay qarannimadeenna dul taagan horumarkeenna dul taagan muddadaas ilaahay idankiis ilmahaas yararka waxaan goobjoog u ahaa aniga markii 2011 muqdisho laga saarayay taliyaha nabad sugidaan ahaa waxaan safka hore uga jir dagaalkaas waa ilmo yaryar oo aad aan isku naqaano oo aan rajaynayo ilaahay idankiis inaan annagoo caalamka saaxiibadeena kaashanayna in ay muddo kooban nagu dhaafaan waxaan xoogga saari doonaa dadka Soomaaliyeedna waa buruuf gareeyeen arrintaas 2-3 sano ka hor ama 2 sano iyo bar ka hor halkaana laga dhaqaaqay meesha ciidanku joogaanna waa loo yahay maanta meel fiican bay joogaan waxaan xoogga saari doonaa wixii dib u habeena oo horay u socday inay sii dhammaystirmaan oo aan soo saaranno ciidan ku suntan tayo aqoon iyo anshax lagu halayn karo amniga dalka gudan kara waajibaadkooda kaligood ciidamada kale ee nala joogana aan leenahay waa isku filaanay markii aan gaarno halkaas waan mahadsantihiin waxaan xoojin doonaa wasaaradda difaaca inaan barnaamijkeeda iyo reformkeeda inaan qayb ka ciyaar waxaan hirgelin doonaa qorshaha horumarinta amniga qaranka security sector development plan oo si buuxda qorshahaasoo madaxweynuhu dalku ka daahfuray magaalada New York 21 December 2023 waxaan xoojin doonaa xiriirka shacabka iyo ciidanka u dhaxeeya sidaas la mid ah waxaan xoojin doonaa xiriirka dadka caawiya dowladaha caawiya ciidankeena oo aan dhageysan doonaa konseynkooda iyo talooyinkooda ku saabsan muddadii ay ka shaqaynayeen ciidanka difaacu waa shaqo wadaniyadeed waxaana lama huraan ah in ummadda Soomaaliyeed ay ku baraarugto muhiimadda ciidanka qaranku ama ciidanka xoogga dalku uu leeyahay qof kasta oo Soomaaliyeedna meel joogaba
وإنه كتبرعه maalkiisa maskaxdiisa iyo si halgankaas aan kugu jirno dalkeenu inuu soo ceshado awooddiisii uu hirgalo. ugu dambayn waxaan ballan qaadayaa inaan si daacadnimo oo hufnaan leh wadaniyeed leh aan u gudan doono waajibkeenna qaran. waxaan rabaa inaan xuso dad hal nin oo ka mid ah markii lay magacaabay asagoo keligiisa magaalada Nuur Dugle qori aakay wata ka dabaaldegay oo yiri ninkaas waa soo dhawaynaynaa reer Nuur Dugle inkastoo laga Jalalaqsi iyo Hiiraan shabeellada dhexe iyo Mudug iyo Galgaduud iyo gobolada dalkoo dhan ilaa Khaatumo arrintaas laga soo dhaweeyay. haddana waxaan rabaa inaan xuso Sheekh Cali Muuse Cusmaan oo reer Nuur Dugle mujaahidiinta halkaas dagaalka uga jira oo kaligiis qori aakay inta istaagay oo beesha kabaala oo kaligiis inta qori la istaagay kaligiis riday oo dabaaldegay. waxaan ku leenahay Sheekh Cali iyo ragga la midka waxaan kugula jiraynaa kuu kaalmaynaynaa inaad deegaankaada difaacatid khawaarijtana aysan tareed ama amni darro ku noqon Nuur Dugle iyo deegaan kastoo Soomaaliyeed. waxaan rabnaa ciidanka xoogga dalku wuxuu matalaa xoogga dalka la yiraahdaa in ciidankaas ciidan Soomaaliyeed oo Soomaali ku kalsoon tahay waan qabiil lagu tilmaamin oo haybta ciidanka leh aqoon leh. ciidanka Suudaan ayaa tusaale loo soo qaadan karaa waxay noqdeen unugta kaliya ee dowladnimadii hadda haysa ciidan 100 sano jiray isku kalsoon يعني دلكودي الدفاع عليه كدفاع عليه وردي لغسو قاضي مؤسساتك عيدنك مركا قبيل ماهن عيدنكو ماهن كوح قارة عيدنكو ديان قارة ماهن عيدنك قرنكو قف كستو الصومالية معارضي محافظ ايالا رباه انو قرب استاغو قرينا مع المدح ناسو اوشاقني سياسات كالله اسكوها ايها لقد احسار عيدنك ولي روحان لفري سنينا رقا صاحبنا يرو معارضك ولا فري سنينا سيانو دقي سنو haddii talo ciidanka lagu hagaajinayo ama talo ay hayaan si aan isku barbar uga soo wada jeesano hadday dhab ka tahay in khawaarijta dalka laga nadiifiyo. waxaan soo dhaweynaa waxaan rabaa inaan salaamo ciidanka dhufaysyada hore ku jira ee Soomaaliyeed ee runtii duruufta adag oo hadda wasiirkii iga horreeyay uu sheegay ku shaqeynaya muddo dheer dalkan halkan ka qaaday aan ognahay mar kamida mararkooda inaysan kaba haysan 2011 dhar qaadiyo militariga aysan haysan tuutihii oo ay ku dagaalamayeen ayagoo saandal wata mararka qaarkoodna macuus wata laakiin maanta meel fiican baa la soo istaajiyey taliyaal badan baa isaga dambeeyey taliyooda waana nafhurnimadiisa iyo geesinimadiisa isagana runtii waa amaanaynaa in dhalinyaro oo waxa weeye shaqo fiican dalka u haya. waxaan rajaynaynaa inaan taliska iyo wasaaraddu aysan culowtamin loolan ka dhex dhicin. loolanku waa mid halkaana dhigay wax la iska riixanayo sidii jaamac uga tagay oo Jibriil hadda uga tagay ayaan uga tagi doonaa sidii taliyaalkaaga horreeyay ay uga tageen ayaad adiguna uga tagi doontaa. wax loolan la yiraahdo dalkeena waxay u dareynaysaa khawaarijtu inay dalka sii joogaan ama hay'adaha kale amniga ha ahaato ama shacabka Soomaaliyeed dhamaantiis. loolan ma jiri doono iskaashi isgarabsi iswalaalaysi isla shaqayn iyo is-aaminid ayaan abuuri doonaa taliska iyo wasaaradda taasaanan anigu calinkeeda wadi doonaayo layguma arki doono anoo la ficiltamaya taliye ama anoo maaragtay hawl kale oo kale ka dhex sita ciidanka waxaan sixi doonaa logistikadiisa anigu xardheeraan joogay bil iyo xoogaa baan ku sugnaa berigii 2023 markii beelaha qaar laga soo baxay. runtii ciidankaas waxaan ogaa labada urur oo halkaas joogtay duruuftay ku jireen iyo dhibaatada ay u qabeen in shidaalku soo gaaro ama raashinku soo gaaro oo mararka qaarkood aan uga gadaynay meeshii aan joognay. waxaan sixi doonaa tayada cuntada ay cunaan tayada shidaalkooda inuu ugu tago meeshooda iyo dhammaan wixii caqabado jiray inaan meesha ka hor wareejinno oo ka qaadno hadday caqabado ahaayeen maaragtay wasaaraddu wado
iyo haddii meelo kale ay ka jireenba logistikada soo daahiddeeda hadday ahayd waxaan garab siin doonaa haddii la yidhaahdo in ciidamada soomaaliyeed ay u dallacaan oo taliyaha iyo taliskaba ay u dallacaan hab meerida oo xildhibaan ama wasiir inta qaado koox qabiilkiisa madaxweynaha inta u geeya yidhaahda halkan jenaraal iga dhig ninka ama taliya iga dhig taas waan ansixi doonaa xataa darajooyin qaldan haddii la baxshay